الله naxariisto hoygii uu degnaa marxuun Axmed Mukhtaar Saalax oo loo yaqaanay Axmedow waxa booqday duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Ejneeriso si uu la kulmo qoyskii uu ka baxay marxuun Axmedow oo 20 bishan September ay kooxo rag iyo dumar ka koobnaa si arxandara ugu dileen xaafada Tawfiiq ee degmada Yakshiid gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa qoyska uu la kulmay kaga tacsiyay dhibkii soo gaaray isla markaana si guud ay ugu damqadeen madaxda qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed waxa uu sidoo kale gudoomiyaha uu sheegay sharciga loo horkeeni doono shakhsiyaadkii ku kacay falkaasi wuxuushnimada ah inkastoo haatan ay hay'adaha amnigu sheegeen in ay gacanta ku hayaan qof kamid ah qoyska dhibka geystay Cabduqaadir Maxamed Nuur oo abti u ah marxuun Axmed Mukhtaar Saalax ayaa u mahadceliyay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ka dhiidiyay dhacdadii argagax reebtay isagoo ka dalbaday maamul gobolka Banaadir iyo dowladda Soomaaliya in cadaalad la hor keeno dadkii nolosha ku gubay Allah u naxariisto marxuun Axmedow ilaa u naxariisto dhamaantoona naga tagay waxaan u jeedaa maanta dawladnimo ka muuqato sidaad arkaysiin waxa la yiraahdaa cadaalad daro meesha way ka baxday waxaadaas ilaahay u sugnaatay madaxda qaranka oo wakiil oo ka yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir Dr. Iriso waxaan rajeeyeen waa aragnaa waxaan rajeeyeen aan sugeene alxamdu rabbil caalamiin waa u jeednaa aniga waxay limadna waxaan u filayaa inay qanacayeen maanta arinta waxa waaye cadaalad loo fuliyo cadaaladna way bilaabatay halka nin kasto wuxuu aaminsanaa meel aska dhigo waxa wax sameeyay shakhsiyaad qabiil wax ma sameeynin dawladda hoosna wax ma sameeynin mid qaranba shakhsiyaad wax sameeyay shakhsiyaadkan wax sameeyay waa laga miisaa duqa magaalada Muqdisho mudane Ejneeriso ayaa si adag u sheegay in aysan jirin muwaadin ka karaamo badan muwaadin kale isla markaana uu Ilaahay isku si u karaameeyay adoomadiisa sidoo kale gudoomiyihiisu ayaa kafaalo qaaday nolosha qoyskii uu ka baxay marxuun Axmedow waxaan u nimid inaan u tacsiyeyno qoyskii oo xaasaskii iyo Axmed aabihiis iyo walaalihiis baan soo aragnay sidaan uga xunnahayna aan u sheegnay runtii mid loo dul qaadan karo ma aha muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walba joogaan muwaadin kasto isku xaq u leeyahay muwaadin kale ka xaq badan ma jiro falkan isaga aan waxaan rajaynayaa inuu noqdo falkii dhamaanteen ummadda Soomaaliyeed meel walba joogno na tusi lahaa cadaaladda iyo xaqa noo soo jeedin lahaa in sinaan iyo cadaalad ay Soomaaliya horumar ku gaari karto waxaan aad uga mahadcelinaynaa qoyska oo runtii si sharaf ku jirto inoo soo dhaweeyay tacsidii nooga aqbalay annagana waxaan u ballan qaadnay koow in marxuumka iyo qoyskiisiiba inaan annagii dawladda hoose gobolka Banaadir ba aan kafaalo qaadno oo aan ka warqabno labo in wiilkii gabadhii iscaashaqay iscalfaday inaan ayagana amnigoodii iyo sidii ayaga naftirkoodii aan muxuu ahaa ku badbaadin lahayn isla markaana noloshooda u kafaalo qaadi lahayn iyadana inaan u ballan qaadno anigoo wakiilka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda qarankana inaan u sheegno sida aan uga xunnahay falkan isaga ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale sheegay in si degdeg ah sharciga loo horkeeni doono shakhsiyaadkii ka dambeeyay dilka marxuun Axmed Mukhtaar Saalax in cid alaal cidii ka dambeysayna cadaalad la horkeeni doono haddana inta xiranna maxkamadda loo gudbiyay inta dhiman oo waliba gacantooda falkan ku geystay oo dhuumanaysana shacabku waxaan ka codsanaynaa inay hay'adaha amniga oo aad u dadaalay ay kala shaqeeyaan sidii degdeg loo soo qaban lahaa iyagana waxaan ugu baaqaynaa cadaaladda ayaa idinka sarreysay dembi kastood gasheen imaada cadaaladda hor imaada ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtana ha ku qancado muwaadin kastoo Soomaaliyeed in la siman yahay isku xuquuqna la wadayaa lagama hari doono waa daba joognaa waana la soo qaban doonaa waxaan kaloo uga digaynaa cidda rabto inay cadaalad inta tagto ama islaanta xiran waxaana loo sheegay dad siyaasiyiin waliba xildhibaanaa inay tageen rabaan inay damiin ku soo daayaan taas ma aqbali doono mana aqbali karno waxaan leenahay cadaaladda cid ka sarreyso ma jirto madaxda qarankana ma ogolaan doonaan arrintaas iyada ah waxaanan ugu ballan ah in cadaaladda ay istaahileen ay helaan dadka dembigan foosha xun geystay Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.